السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد بان إذين سلام يا صاحبيال. هالكن وجنالك حقت دالك كسر دوادا داوديال وركا جنالك حقت دالك قضبضا عن إذين سو قد بني وحاكم النغنية محمد أبوكر oo lagu dilay gudaha magaalada caasimada Muqdisho waliba xog ku saabsan sida dilkiisa uu dhacay ayaan idiin soo gudbin doonaa. Taliyihii hore ee NISA oo war ka soo saaray dilka ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ay u geysteen walaalkiisa ka yar waqtiga dib loo furiyo dulimaadada gudaha Soomaaliya oo la shaaciyay. Jawaab laga bixiyay geefkii uu Faysal Cali Waraabe u geystay beesha dhulbahante. maamulka Somaliland oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada deegaanka Tuqarraqa magaalada balad xaawo dadka ku nool oo la sii dala dhacaya caabuqa Covid-19 waxa markii la saaxibiga la ismaqal wanaagsan taariikhda waxa ay ku beegan tahay 1 bisha June ee sanada 2020 intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka xulan warka xogta dalka ku soo dhawaada iminkan warkii oo faahfaahsan hadii aynu ku bilaabno saaxibiga askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii la soo dhaafay wiil dhalinyaro ah ay ku dileen suuqa ganacsiga ee Sinai ee ku yaala bartamaha magaalada caasimada Muqdisho. marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Maxamed Abuukar Tuuryare sida ay xaqiijiyeen ilo deegaanka oo lagu kalsoon yahay. wararka ayaa sheegaya in ciidamada oo ku sugnaa isgoyska Sinai waliba wiilka dhalinyarada ahaa uu soo kala dhaxgalay muran kadib markii la sheegay inay ka shakiyeen iyadoona muran dabadeed ay toogteen allaha u naxariistay marxuum Tuuryare. sidoo kale waxa goobta gaaray ciidamo oo markaasi ka agdhow goobta oo dilka ka dhacay iyadoona markii dambe meydka laga qaaday halkaasi ilaa hadda ma jiro wax faahfaahin ah oo laamaha ammaanka ay ka soo baxay dhacdadaasi ka dhacday isgoyska Sinai magaalada caasimada Muqdisho mana cadda in gacanta lagu dhigay askariga dilka geystay. inta badan ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gudaha magaalada caasimada Muqdisho ayaa geysta dilal ka dhan ah dadka shacabka ah iyadoona aysan jirin cid wax iska weydiisa dhibaatooyinka ay ciidamada dowladda Soomaaliya ay markaasi ka geysanayaan gudaha magaalada caasimada Muqdisho. dhowr jeer ayay dhacday in ciidamada dowladda Soomaaliya dilal kala duwan markaasi ay u adeegsadaan dadka shacabka ah. inta badan muran xoogan ayaa markaasi dhex yimaada ciidamada dowladda Soomaaliya waliba shacabka ku sugan. markan hadii aynu eegno saaxiibayaal taliyihii hore ee adan nabadgelyada iyo waliba sirdoonka qaranka General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare ayaa ka hadlay dilka saaka wiil ay markaasi ilmadeer ay ahaayeen loogu geystay gudaha suuqa Sinai magaalada caasimada Muqdisho. marxuumka lagu magacaabi jiray Maxamed Abuukar Tuuryare ayaa waxaa toogtay ciidamo ku sugnaa isgoyska Sinai sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah. qoraal uu General Tuuryare soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu ku sheegay in geerida Maxamed ay u xanuujisay sida curidkiisa oo kaleeto oo dhintay. sidoo kale wuxuu uu tilmaamay marxuumka oo dhalinyaro ahaa oo isaga oo soo barbaariyay isla markaana uu qorshihiisu ahaa in sanadkan uu bilaabo jaamacad markaasi ku taala gudaha magaalada caasimada Muqdisho. Tuuryare waxa uu soo qoray fariintan: Allah u naxariistay wiil firfircoon oo aan gacan ku hayay ana barbaariyay sanadkan jaamacadda galaya ayuu ahaa oo ubax soo baxaya saaka curadkeygii oo dhintay oo kale ayay ii xanuujisay geerida ee ku timid walaalkeyga iga yar. Allah u naxariistay aabihiisana aad ayuu u jeclaa waxaana uu sheegay inuu ka xun yahay geerida ku timid walaalkiisa ka yar. ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in marxuumka ay dishay gacan ka xaqdaran oo ka tirsan ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya. Allah u naxariistay walaalkay Maxamed Abuukar Tuuryare oo saaka gacan ka xaqdaran dishay kuwaasi oo dilay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya xaq maahan ayuu yiri taliyihii hore ee NISA oo war ka soo saaray dil ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya ay u geysteen walaalkiisa ka yar. dowladda kale daawadayaal hadii aynu eegno waqtiga dib loo furayo dulimaadada gudaha Soomaaliya oo waa la shaaciyay sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta dowladda oo qaabilsan dulimaadka. waxaa toddobaadkan dib loo furi doonaa dulimaadada diyaaradaha ee gudaha dalkeena Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa 29 bisha Maarso waxa ay si ku meel gaar ah u joojisay dulimaadada dalka gudihiisa si loo xakameeyo faafitaanka cudurka Covid-19 xilligaasi oo kiisaskii ugu horeeyay ee coronavirus laga helay gudaha dalkeena Soomaaliya. kulan gaar ah oo yeesheen sida sheegay saraakiisha laanta hay'adda socdaalka waliba jinsiyadaha iyo waliba mas'uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ayaa waxa ay isku raaceen in marka la furo dulimaadada
lagu dhaqmo amaro la xiriira ka hortagga COVID-19 oo horey loo soo saaray awaamirtaasi. Rakaabka diyaaradaha raaci doona waxa ay xiran doonaan galoofis ama gacmo gashi wax loo yaqaano. Maaska waa ay qaadan doonaan oo way isticmaali doonaan, sidoo kale waxay isticmaali doonaan waxyaabaha gacmaha lagu nadiifinayo si looga foojignaado xanuunka COVID-19 oo weli ka jira gudaha dalkeena Soomaaliya. Dabayaaqada bishii Maarso ayay ahayd markii la joojiyay duulimaadyada gudaha Soomaaliya, waxaana arintaasi ka dambeysay markii uu xoogeystay faafitaanka COVID-19, waana habka ay markaasi raaceen wadamada kale ee dunida ku yaala. dhammaan xafiisyada duulimaadyada ee ka shaqeynaya gudaha magaalada caasimadda Muqdisho iyo waliba gudaha dalka ayaa albaabada loo laabay maadaama aysan jirin wax shaqo ah oo ay qabanayaan, balse markan dib ayay u furmi doonaan muddo kadib. Gunaanadka waxaa la sheegay waqtiga dib loo furayo duulimaadyada ee gudaha dalkeena Soomaaliya. dhinaca kale haddii aynu eegno saaxiibayaal, gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Somaliland Mudane Baashe Maxamed Faarax warbaahinta u waramayay ayaa ka falceliyay hadalka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Faysal Cali Waraabe, kaasi oo ahaa in Baashe iyo waliba Axmed Karaash ay culays weyn ku hayaan maamulada Somaliland iyo waliba maamulka Puntland. Baashe Maxamed Faarax ayaa sheegay in aan loo dulqaadan karin hadalkaasi, wuxuuna tilmaamay in uu ka muuqdaan nacayb iyo waliba qabyaalad sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay dambi qaran tahay in qofka gudoomiye xisbi inuu ka shaqeeyo isku dirka waliba kala fogeynta beelaha Somaliland. waxa oo kale gudoomiyaha uu hoosta ka xariiqay in gudoomiyaha xisbiga UCID uu si gaar ah u neceb yahay beelaha Harti waliba Daarood oo kamid ah beelaha maamulka Somaliland. Faysal waan ku ogaa inuu neceb yahay beelaha Harti waliba Daarood, sababtoo u neceb yahayna waxay tahay wuxuu markaasi ku qarinaya dhibaatadii uu xamar ka sameeyay iyo waliba dhibkii uu u geystay beelaha Somaliland ee deegaan, ayuu yiri gudoomiyaha maxkamadda ee Baashe Maxamed. ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Somaliland ayaa xusay in Faysal Cali Waraabe uu arintan inta badan ku andacoonayo, wuxuu raalgelin markaasi uu siiyay beesha dhulbahante. dowladda kale saaxiibayaal, isla wararka Somaliland ayaynu ku guda jirnay. maamulka Somaliland waxa ay dhaqdhaqaaqyo markaasi ka bilowday deegaanka Tuqaraq. wararka laga helay gobolka Sool ee waqooyiga Soomaaliya ayaa sheegaya in saaka ciidamada maamulka Somaliland dhaqdhaqaaqyo hor leh ay ka bilaabeen deegaanka Tuqaraq oo ay muddo isku hor fadhiyeen ciidamada maamulka Puntland iyo waliba Somaliland. ilo deegaanka ayaa waxa ay noo sheegeen in ciidamada maamulka Somaliland ay isku fidiyeen qaybo badan oo kamid ah deegaankaasi iyaga oo wata gaadiidka dagaalka. sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa inay haatan wadaan dhaqdhaqaaqyo aysan horey u sameyn jirin, sida ay markaasi noo sheegeen wariyaal ku sugan gudaha deegaanka Tuqaraq ee gobolka Sool ka tirsan. xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan, iyadoona laga cabsi qabo in mar kaleeto dagaalo dib markaasi ay u qarxaan gudaha deegaanka Tuqaraq ee gobolka Sool ka tirsan. lama oga ilaa hadda waxa ay ku soo beegmay dhaqdhaqaaqyada militariga, mana jiro wax hadal oo ka soo baxay labada dhinac, maamulka Somaliland iyo waliba maamulka Puntland. Somaliland iyo waliba Puntland ayaa marar badan ku dagaalamay aaga dhinaca Tuqaraq iyaga oo isku haya gacan ku haynta deegaankaasi, oo maamulka Puntland waxa ay sheegtay in Tuqaraq markaasi ay ka tirsan tahay maamulka Puntland, halka maamulka Somaliland ay sheegtay in deegaanka Tuqaraq markaasi ay leeyihiin gudaha maamulka Somaliland. geesta kale saaxiibayaal, haddii aynu eegno gudaha magaalada Balad Xaawo, dadka qaba caabuqa COVID-19 oo ay ku sii kordhayaan. magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo waxaa ku sii kordhaya tirada dadka u dhinta, iyaga oo markaasi sidoo kaleeto ay ku sii badanayaan tirada dadka qaba caabuqa COVID-19. 48 saac ee la soo dhaafay ayaa la sheegay inay dhinteen 6 qof oo markii hore lagu arkay xumad daran, qufac, dhadhanka iyo urta oo ka tagta, waliba neefta oo qabata. magaalada Balad Xaawo ma laha shay baar lagu ogaan karo haddii xanuunka dadkani ay u dhinteen uu yahay COVID-19 iyo waliba haddii kale. dhowr iyo 10 qof oo kale oo laga qaaday baaritaano la xiriira fayruska corona ayaa maanta xamar markaasi loo daabulay. baaritaano markaasi lagu sameeyay dabadeed ayaa la ogaaday inay qabaan caabuqa COVID-19. dadka deegaanka kuma baraarugsana khatarta cudurka COVID-19, iyagoo aan dhag markaasi jalaq u siin talooyinka caafimaad ee ka hortagga xanuunka COVID-19
isuduwaha caafimaadka degmada Balad Xaawo Axmed Cadow ayaa hore u sheegay inay kordheen dadka leh astaamaha viruska coronavirus. aad baan uga xumahay ayuu yiri dadka qaba caabuqa COVID-19 waxay ku sii badanayaan gudaha magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Dowladda Soomaaliya waxaynu ka codsanaynaa in ayna soo gaarsiiyaan shaybaarayaal inta badan lagu baaro caabuqa COVID-19 sida loo ogaado dadka inay qabaan iyo waliba in kale. Tirada guud ee cudurka COVID-19 laga helay gudaha Soomaaliya ayaa gaaraysa 1976 iyadoona tirada uu dhimatay COVID-19 ay gaarayaan 78 ilaa hadda waxaa cudurka ka bogsaday baa leeyahay 340 iyo waliba 8 ruux. guud ahaan saaxiibayaal warkaad kala socoteen channelka xogta dalka waanigeynta anigoo Cabdirashiid Ibraahim Cali ayaa la socodsiinaya saaxiibayaal warkiisa xiga noole kulanti